kulanti wanaagsan dadka dunida dacaladeeda naga daawanaya kuna soo dhawaada barnaamijkii dood wadaag oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka Universal. Sidaanu la socodno marka la soo hadal qaado Somaliland waxaa hortaada imaanaya dhowr arrimood oo muhiim u ah xaaladda siyaasadeed ee Somaliland kuwaas oo saldhig u ah muranada hadda taagan ee Somaliland iyo oo ugu waaweyn arrimaha soo socda. Arrinta Berbero oo lagu kala aragti duwan yahay dib u dhaca doorashooyinka habka dhismaha maamulka dawliga oo dad badan ay qabaan inaan si cadaalad loo maamulin wada hadallada dawladda Soomaaliya iyo Somaliland abaaraha iyo dhibaatooyinka jira arrinta furfurnaanta iyo dimuqraadiyadda oo waayahan dambe mugdi weyn oo soo galo oo dad badan ay aaminsan yihiin in dhibaato xoog badan ay ka timid oo arrintaasi dad xabsiyada la dhigay arrinta baadidoonka aqoonsiga oo iyadana rubac qarni iminka ay ka soo wareegatay aragtida uu ka qabo xisbiga wadani. Arrinta kale oo iyaduna taagan waxay tahay arrinta golaha guurtida oo mar walba xal u ahaa markii dhibaatooyin dhaco haddii la dhageysan waayo khilaafaadkaasi ma keeni karaan gacanka hadal iyo khilaafaad siyaasadeed oo sababa markii dambe inay dagaalo dhacaan. Barnaamijkaas qodobadaas aan caawa ku soo qaadanayno iyo qodobo kale oo aad u fara badan oo dad badan caawa ay nagala qaybgeli doonaan waxaa marti ku ah oo nagala qaybgelaya gudoomiyaha aqalka wakiilada isla markaana musharax u taagan xilka madaxweynenimada Somaliland oo u matali doona ama ugu tartami doona xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha aqalka wakiilada ku soo dhawo barnaamijka dood wadaag. Maxamed Caawish sida la socono maalmihii ugu dambeeyay ama xiliyadii ugu dambeeyay waxaa jiray murano ka taagan arrinta dekada Berbera iyo garoonka diyaaradaha iyadoo waliba dad badan oo Somaliland ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay tahay arrinta ugu daran garoonka diyaaradaha oo laga baqdin qabo inuu noqdo xero ciidan oo military oo dawlado badan oo dunida ay gadaal ka riixayaan. waa maxay aragtidaada gudoomiye? بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان dadka daawanaya barnaamijkan meel kasta ay joogaan arrinta ku saabsan saldhigga military ee laga bixinayo magaalada Berbera gaar ahaan garoonka caalamiga ee magaalada Berbera mowqifkayga shakhsiga iyo ka xisbiga waa isku mid waxaan u arkaa ama xisbigu u arkaa inaanay Somaliland dani ugu jirin marka la eego xaaladda nabadgeliyo ay ku sugantay Somaliland oo wadan nabadgeliya arrintaasina u keeni karto colaad aan hadda oolin Somaliland mowqifkaygu waa kaas. sidaan la soconno golaha guurtida iyo aqalka wakiilada iyo qaar ka mid ah xisbigaaga wadani oo golaha ku jira waa ansixiyeen sidee isku qaadanaysaa in xisbiga qaarkiina yiraahdaan u codeeyaan in la yiraahdo arrinta inay sax tahay oo codkii kalsoonida la siiyo adiga oo gudoomiyihii musharaxii xisbiga wadani ah aqalka wakiilada madaxka oo aqalkaagu ansixiyo golaha guurtida ansixiyo shakhsiyan diidan yaana dimuqraadiyadda aan ay ahayn majority in la taageero dimuqraadiyaddu waa la kala helaayade ma aha khasab inaad raacdo qofku mowqif buu leeyahay axzaabtuna mowqif bay leedahay xisbigu mowqifkiisu wuu cad yahay qof ka midina dee mararka qaarkood wuu ka leexan karaa mowqifka xisbiga ama xildhibaan ha noqdo ama mas-uul kale ha noqdo laakiin mowqifka xisbigu shaki kuma jiro meel cad buu istaagay arrintaana wuxuu arkaa inaan wax maslaxada Soomaaliyeed ugu jirtaa aanay jirin sida loo buunbuuniyey maaha mid 2-3 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga oo markii la codeynayay u codeeyay waa jiray laakiin waxa meesha isku hayay waxay ahayd maxaa loo codeeyay heshiis lama keenin dawladdu heshiis way geli kartaa laakiin heshiiska ay gashay ayaa la keenaa baarlamaanka marka heshiis la keenay horta ma jirin marka marka heshiis la keenaa uu heshiiskaasi صح iyo diidmo mid uu noqonaya laakiin heshiis la keenay ma jiro ilaa hadda xogta aad hayso marka Berbera iyo saldhigga militariga laga hadlayo meelaha qaarkood qoraal soo baxay dawladda federaalka ah saxiixday oo dawladdan hadda jirta ka horeysay Somaliland iskeed u saxiixatay oo arrinta gashay
maxaa ilaa hadda xogaho la hayaa oo adigu maadaama mas-uuliyiintii aad ka tirsan tahay tuunkaasi waa jiraa waanu soo baxay laakiin wax cad oo documenta waanu anagu haynaa ma jiro dowladda laga rabaa inay caddayso ama waa inay keentaa wixii heshiiskii inay iyadu seexday oo dee u dhab yahay iyadu seexday ama hadday cid kale seexday dee waa inay keentaa oo caddaysa laakiin sharciyan dastuurku u ogolyahay xukuumadda inay heshiis gasho laakiin arrintaasi inay mugdiga ka saarto waajibka xukuumadda weeye taas haddii khilaafaad noocaani ay dhacaan inta badan somalilan waxaa lagu yaqaanaa marka arrimo la isku qabsado waxyaabaha ay caanka ku tahay waxaa ka mid ah in odayaasha gurtida ay soo galaan dadka samadoonka ay soo galaan la xaliyo khilaafaadka noocan khilaafkaani waxaad moodaa inuu yahay mid raagay oo xal deg dega aan loo helinin ma ku muuqataa in aakhirka uu keeni karo in dhibaatooyin intaa ka badan ay dhacaan haddii ay sii socdaan horta sida dastuurku sheegayo somalilan hadday xukuumaddu heshiis gasho wuxuu awooddaas siinayaa in la ansixiyo golaha wakiilada golaha guurtu si aad sheegayso golo muhiima weeye somalilan inta badanna xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada ayuu waajibkiisu yahay laakiin waxaad moodaa dee halkii loo noqon lahaa maslaxaadda noqon lahayd imika iyadii cidda laga cabanaya laleeyahy iyada hawsha dee marjicii noo noqon lahaa ayaad moodaa dee inuu meel loo noqdaa hadda maanta aanu jirin waayo golihii guursidu isaga ninka laga cabanaya waa golihii guursida adigoo aada u mahadsan somalilan iyo guud ahaan soomaaliya waxaa hadda ka taagan abaar xoogan oo meelaha qaarkood dad badan oo dhibaatooyin xoogani ay soo sheegayaan oo meelaha qaarkood lagu dhimanayo xaaladaha khilaafaadkuna dhibaatooyinkaas dabbay kusii horeeyaan oo waxaad moodaa inay mushkilada hor leh ay kusii noqonayaan xisbiyadu arrintaa maxay ka qabteen xisbiyadu iskuma khilaafsana in shacbiga loo gurmado dadka abaartu haleeshay ee somalilan markii doo koonfurtu ka dhacday 2011kiina gacan bay ka geysatay marka somalilan iyo axsaabteedu iyo xukuumaddeedu iyo shacbigeedu halkaa wax khilaafo ka jira ma jiraan dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin in iyagu waxay tarayaanna ay taraan xukuumadduna dee awooddeeda ugu badan ay bixiso beesha caalamkana loogu baaqo inay u soo gurmato shacbiga marka halkaa wax khilaafo ka jira ma jiraan adigoo aada u mahadsan guddoomiye saan la soconno taariikhda marka dib loo raaco 2005 ayaa lagu doortay 12 sannadood aad kasoo wareegatay dabcan inta aad adigu guddoomiye tahay saluug badan laftigiisa guddoomiyaha aqalka aad ka tahay wuu jiraa xagga shuruucda iyo waxyaaba dib loo dhigo mararka qaarkoodna eedo badana ayaa soo baxa eedaha qaarkood dowladda keligeed iyo madaxda mas-uuliyiinta ka ay keligood ma qaadayaan aqalka aad madaxda ka tahay laftigooda qayb buu ka yahay eedaha laftigooda adigu laftigaaga soo inaad qayb ka qaado maaha horta dee dastuurka u qeybiyey shaqada dowlad kastoo dunida jirtaa 3 waaxood bay leedahay midi waa xeer dejin ama waa baarlamaan midna waa fulintii oo xukuumaddii midna waa maxkamadihii waxaas leeyahay dee golahani marka la eego shuruucda ugu badan ee somaliland laga ansixiyey golihii ugu badnaa ansixiyey weeye marka waajibaadkiisu waa inuu shuruuc sameeyo marka waxaan is leeyahay shuruucdii ugu badnayd ee loo sameeyey dalkana muddadii baarlamaankana jiray baa la sameeyey waxaan is leeyahay waa laga yaaba gaabis inay jiraan expectationkii laga rabay ama wixii laga filayey inaanu wada fulin waa laga yaabaa ma odhan karo dhaliil ma leh golahu kordhimaha badanna isagu wax dhaliil ku yeelan karaa ma jiro dee doorashada haddii la qabto anagu diyaar baanu nahay 2010kii haddii la qabto diyaar baanu nahay maanta haddii la qabto diyaar baanu nahay laakiin duruufo jiray baa mar walba keenayey in la kordhiyo marka wixii uu dhaliil leeyahay golahani ka difaaci maayo ana iska difaaci maayo laakiin shaksiyan waxaan leeyahay dee shacbiga ayaa taa markhaati ka noqon doona golahu wuxuu dhaliil leeyahay shacbiga soo doortay oo waxay la tahay shacbiga ama dee
doorashada soo socota ayay ku xidhantahay shacbigu dee qofkii aan ka soo bixin waajibkiisa in loogu celiya in loogu celi shacbiga ku xidhanta marka golo laga hadlayo waa hay-ad sharci dejin dabcan somalilan marka dib loo akhriyo oo waxa ka jira la fiiriyo arrimaha dimuqraadiyadda oo waxyaabaha lagu ammaano inay dimuqraadiyad ka jirto oo dadku ay yihiin dad dimuqraati ah oo wax dooranaya laakiin markaad fiiriso xagga sharciyada saxaafadoo kale markaad fiiriso waayahan dambe waxaa dhacaya qofkii hadlaba waa la xeraya waxaa xiran dad wariyaala qaar samadoon oo nin la yiraahdo coldoon oo kale waxaa la xiraa qofka wariyaha oo wax sheega waxaa la xiraa qofkii siyaasi oo hadla sida maxamed baasho kale oo nin aada loo yaqaano qoraa ah waxaasoo dhan waxay salka gelinayaan xagga shuruucda haddaan shuruucda la ilaalinayso xukuumadda laftigeeda kuma tumanayso eedaas wakiilada laftigooda qayb ka maa dadka xabsiyada ku jira oo aan maxkamadda la keenayn maya goluhu kama mas-uul hadda in la xidho wariye laakiin wuxuu ka mas-uul yahay de in sharcigii uu sameeyo sharcigii ilaalin lahaa wariyaha marka xeerka saxaafadda ugu jiraa laakiin xukuumaddani marka la eego xukuumaddii somaliland ee soo jiray xukuumaddii ugu geefafka badnayd ee ugu caburin badnayd weeye marka dee intaana waa ama baarlamaan ha noqdo ama xisbi ha noqdo ama shacbi ha noqdo geefafka xukuumaddu gashay ee ku saabsan caburinta saxaafadda iyadee la dagaalanka xorriyatul qowlka waa laga hadlaa maalin walba laakiin dee recordkana way u gashay xukuumaddan inay tahay xukuumaddii ugu xadhig badnayd joornaal la xidhay suxufiyiinta ugu xadhiga badnayd ugu caburinta badnayd intaasba dee way u gelaysaa taariikhdeeda xukuumadda arrinta kale mararka qaarkood waxaa dhaca wada hadallo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo somalilan dabcan heshiis meelaanu ka imaanayno wada hadal lagama sameeyo mar walba wada hadallo deg dega oo dowlado kale ka dambeeyaan oo aan la ogeyn waxa laga wada hadlayo ayaa dhaca taa laftigeeda waxay keentaa mararka qaarkood in deg deg wada hadal u dhaco deg degna uu burburo siyaasi rugcadaaya aada ula socda xaaladda siyaasadda soomaaliya iyo somalilan markay wada hadalkoodu ay tahaba ayaad ka mid tahay dadka caanka oo la yaqaano maxaa u sababa mar walba inay wada hadalla dhacaan haddana burburaan horta dee in la wada hadlo waa lagu heshiiyey somaliland iyo soomaaliya somalilandna waa aqbashay in la wada hadlo xukuumadduna bilowgii axsaabta inay kala qayb galaan way soo jeedisay laakiin wax yar kadib xukuumaddu axsaabtii mucaaradkaa way ka saartay wada hadalka marka kolley dee natiijada hadday guul tahay iyo hadday guul darro tahayba xukuumadda qaadaysa waxayna tahay uun dee wada hadalladaasi wax natiijo ka soo baxay oo hadda la taaban karaa ma jiraan marka waxay la tahay ajendayaashii dee si loo wada hadlayay iyo si ajendayaasha loo sameynayay wax midho dhalo ka yimi ma jirin marka waxay u arkeen sharcigu dee wada hadalladaasi yihiin wada hadallo madhaliis noqday oo aan waxba ka soo bixin waxaana u baahan tahay dee in laga bedelo istaraatiijigii hore hadduu shaqeyn waayey waa mid cusub lala yimaada adiga oo mahadsan arrimaha aqoonsiga marka laga hadlayo adigu hadda waxaa tahay musharax u taagan xilka madaxweynaha somalilan rubac qarni ku dhowaad ayaa la baadi doonayaa in aqoonsi dal madax bannaan ay somalilan noqoto ma jiraa istaraatiijiyad qorshaysan oo dadka somalilan aada u sheegi karto ood leedahay waa lagu gaari karaa hanaanka baadidoonka la doonayo in somalilan ay hesho madax bannaan barnaamijka siyaasiga ee xisbiga cutubka ugu horeeya ee barnaamijkaasi waa sida loo helayo aqoonsiga somalilan wax badan horta waa la qabtay lama odhan karo waxba lama qaban muddada 25 sanaa dadaal badan baa la sameeyey dowladdii ugu horreysay ilaa tan hadda jirta waxaa loo baahan yahay waxaa hore la qabtay in dib loo qiimeeyo oo maxaa naga xumaaday 25 sano maxay u shaqeyn waayeen dabeedna wixii wanaagsanaana laga qaato wixii khaldamayna la saxo
waanu haynaa barnaamijkii waxaan isleeyahay dadkii hawshaa qaban lahaana waanu haynaa marka waxaan isleenahay halkaa ay joogto meel ka wanaagsan baa gaadhsiin kartaan aqoonsiga waanu isleenahay dhinaca dowladda marka laga hadlayo somalilan awood qaybsiga dad badanaa waxay qabaan habka wax loo qaybiyo in dhaliilo badan ay ka jiraan oo cadaalad darre ay ka jirto dabcan meelaha qaarkood mar kastaaba meel waxbaa lagu saleeya xagga soomaaliya waxaa lagu saleeyaa 4.5 xaggan dabcan waxbaa dadkii go-aanka gaaray ay goosteen ay sameeyaan laakiin cabasho badan waxay ka jirtaa hanaanka habka dawliga dadka loo magacaabo cadaalad darro aan baahsan ayaa dadka qaarkood sheegaan arrintaa ma qabtaa horta dee somaliland iyo soomaaliya way kala duwan yihiin somaliland xilalka qaarkood doorasho wanma uma fogtaba ayaa lagu kala helaa waxaa ka mid a baarlamaanka somaliland de waxay ku yimaadeen doorasho marka waxaa laga yaabaa 2 qof oo ilmaadeere inay tartamaan hadday doonaan oo midkeed helo marka de wixii doorasho ku yimi ciddii doorashada ka qayb gasho ma helaysa waa laga yaabaa deegaanada somaliland qaar ka mid inaanay kaba qayb gelin doorashada marka inkastoo berigii baarlamaanka la dooranayay gobolada la filayay inaanay doorashada ka qayb gelaynin kuraasi gaara loogu talagalay sida sool iyo qaybo ka mida sanaag marka kuraasyada qaarkood dee doorasha lagu kala helayaa waa tartan qaarna dee xukuumadda ama madaxweynaha magacaaba marka waxay la tahay kolley way jirtaa cabasho gaar ahaan gobolada bariga marka waxay la tahay iminkana diiwaangelin baa la sameeyey berigii dhawey doorashada ka hor diiwaangelinta gobolada gaar ahaan sool si wanaagsan bay uga qayb galeen waxaa cod wanaagsanna way iska diiwaangeliyey marka waxaa isleeyahay hadda fursad bay u leeyihiin intii hore ka badan inay helaan waxay xaq u leeyihiin dee inay tartamaan oo ay madaxweyne u tartamaan waxay xaq u leeyihiin inay axsaab samaystaan wadahadallana way jiraan hadda deegaanada dadka ka soo jeeda waad ka warqabtaayo cali khaliifada iyo xukuumadda wada hadlayaan marka waxaa isleeyahay cabashooyinka qaarna waxaa lagu sixi doonaa doorashooyin qaarna waxaa lagu sixi doonaa wadahadal haddii aan dib ugu noqono arrinta golaha guurtida sida hadda aad sheegtay hadalkaaga ka mid ahaydba golihii guurtida laftigooda laga cabanaya iminkana waxaa jira khilaafaad sababi kara in xaaladdu intaa ka duwanaato walwal ma qabtaa in dhibaatooyin dhici karaan haddii xal loo waayo arrimaha hadda taagan arrimaha taagan ee lagu muransan yahay sidaad sheegtay waxaa dee ka mida uun saldhigga masalan military ee berbera waxaa isleeyahay xilka weyni iyo arrintaa in mugdiga laga saaro iyo in shacbiga la qanciyo iyo in lasoo bandhigo waxaa xaqiiqee jira xukuumadday ku xidhantay iminkana doorashadii waktigii xukuumadda waa la mudeeyey 13 December ayay kaga eg tahay marka shacbigu wuxuu u baahan yahay in loo diyaariyo tartan xalaala oo xora oo lagu tartamo oo si xora si nabadgelyaana loo tartamo marka waxaan isleeyahay xaaladdaas waxa lagaga bixi karaa uun doorasho xor oo xalaala saas waa ta ugu muhiimsan aadaad mahadsantaha dad badanaa lala joogo iyagaan su-aalo siinaynaa fursado kala duwan si su-aalahooda iyaguna ay weydiiyaan dib aan ugu soo noqon doonaa su-aalaha kale qofka ugu horeeyaan fursad siinaynaa ninkaa odagaan siinaynaa haye microfonkaas ku siinaynaa haye بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين waxaan ahay su-aashii ugu horreysay aniga waxaan weydiinayaa guddoomiyaha markii ugu horreysay taariikhda xisbiyada ayaa waxa si cad laysu hortaagay garoonkaas iyo saldhigga imaaraadka kootraada kala cusubana way soo socdaan baa layidhi kuwa dama maxaynu ka yeelina ninkaa kale odagahay بسم الله الرحمن الرحيم
waxaan doonayay gudoomiyaha inaan weydiiyo tribkiisii hore waxay u baxeen waddanka Kenya iyaga oo abaaraha doonaya inay safaaradaha caalamka la kulmaan oo ay dadka tabaalaysan dhaqaale u weydiiyaan iminkana waxay ku maqaalaa inay socodkan qaybta ugu muhiimsan caynka ahayd oo wadamo dooro Yurubna uu tagaayo waxaan leeyahay yani xukuumaddii maxaa ku dhacay ay ahayd abaarihii waxaad moodaa dadkii in la ilaaway oo abaaro xumaa dhulkii ay ka socdaan se ku hanweyn tihiin inaad dhaqaalo u heshaan hawsha wadaan asalaamu calaykum waad mahadsantahay universal barnaamijkaad qabateen waxaan doonaya horta marka hore inaan mahad gaara u noqo guddoomiyaha waayo in muddo aba mas-uuliyiinta reer somaliland fursad uma siiyaan jaaliyadda markay dalka socdaal ku yimaadaan inay soo hor fadhiistaan su-aalo toosana laga weydiiyo habka dalku uu socda marka waa mahad gaara guddoomiyaha isbedel baa dalku u baahan yahay runtii waxaad moodaa nidaamkan dalka maamulkiisa gacanta ku hayay muddada badan in jaaliyaddu ay isbedel badan rajaynayso marka guddoomiyaha su-aashaan weydiinaya waxa weeyaan sidee baa looga xusbiga iyo dowladdiisu ay uga faa'iidaysanayaan cilmiga aragtida kartida jaaliyadda ku nool qurbaha ee reer somaliland aada umahadsan tahay saddexdaa su-aaladood ayaan marka hore siinaa su-aalaha dambe aynu siin doonaa su-aasha heshiisyada iyo arrinta abaaraha iyo su-aasha dambe sida jaalidaha looga faa'iidaysanayo guddoomiye bismillahi raxmaan raxiim horta dee arrintaas saldhigga mowqifka xisbiga waa cadmaynay wixii soo socda horta ma ogin markay yimaadaanba dee laga hadli doonaa marka kuwaa soo socda anigu wax badan kama ogiye dee kolley ciddii ogeyna iyadaa sheegi doonta xukuumadduna maga soo gaadho way sheegi doontaa ta ku saabsan abaaraha runtii dee somaliland iyo gobolkaba ama soomaaliya iyo gobolka inta afrikada bari abaar xun baa ka jirta iminka muddo dheerna way socotay oo 6 bilood ka badan saameyn badanna way ku yeelatay noloshii dadka gaar ahaan reer miyiga dadka xoolo dhaqatada ahaa oo xooli way ka dhammaadeen ilaa December way jirtay oo markaan Kenya tagnay arrimaha waa kala hadlaynay beesha caalamka maanta laftigeeda Chatham House baan ka hadlo abiil baan ka jeediyey in loo soo gurmado shacbiga intii dee aanu gaadhno ama dowlad waxaa laga foreign fiscal in la kulano jimcaha dowladda ingiriisku already dee way ku dhawaaqday dowladda wax bixiyey bay ka mid tahay laakiin waxaa laga yaabaa ku dhawaaqista iyo imaatinka dee macaawimadu waqti baa u dhexeeya marka waxaa isleeyahay dadka waxaa laga yaabaa inay waqti ku qaadato dee inta macaawimadii soo gaadhayso gurmad badani ma soo gaadhin dadka soomaaliyeed ilaa hadda guud ahaan ama somaliland ha noqdo ama soomaaliya ha noqdo marka waa sii wadaynaa abiilka iyo codsiga aanu u weydiinayno beesha caalamka su-aasha saddexaad arrinta jaaliyadaha sidee uga faa'iidaysanaysa runtii jaaliyadaha waxaan isleeyahay lafdhabar bay u ahaayeen markii dee waddanka loo halgamayey lafdhabar bay u ahaayeen 25 sano dhismaha ka qayb qaadashadiisa dhaqaale ahaan lafdhabar bay ka ahaayeen doonistaaga somaliland dad badan oo aqoon leh oo jaaliyadda ka mid ah meesha dooni ha joogaan ama maraykan ha joogaan ama yurub ha joogaan waxaanu jecelnahay arrimaha aqoonsiga laftigooda in looga faa'iidaysto aqoontooda iyo waayo aragnimadooda iyo xidhiidhkooda intaba maadaama dadkani gobolada wadamadan degan ay yihiin dad jinsiyadaha wadamadan haysta wax badan baa looga faa'iidaysan karaa hadday dhaqaalo tahay hadday aqoonsiga tahay hadday cilmigooda tahay intaba waa looga baahan yahay waana looga faa'iidaysan karaa aada baa umahadsan tahay microphone haye ninkan aan su-aashaada haye bismillahi raxmaani raxiim iska fariiso haye laba su-aalood baan weydiinayaa kow midi waxa weeyaan abaaraha waxa gurmad toosa u fidiyey
dadka qurbaha jooga oo qura ayaa dadka abaaraha gurmad u fidiya oo hadda ilaa hadda gurmad gaadhsiiyey oo lacag iyagoo ururinaya oo albaab walba isku garaacaya dadka qurbaha joogaana waa dad shaqaalaha oo dee wadamo yuruba jooga gudaha dadka jooga sida baarlamaanka oo kale ciidamada oo kale wasaaradaha oo kale macallimiinta oo kale jaamiciinta oo kale dadka mushaharka qaata ee Soomaaliland waxay abaaraha ugu gurman waayeen oo lacag ugu ururin waayeen sida baarlamaanka golaha guurtiga ciidamada su'aal waa taa su'aasha labaad saldhigga militariga Somaliland ilaa 20 saldhig military baa ku wareegsan 4 saldhig military waxaa Djibouti intan hubo kale anigu 2 saldhig military waxay ku yaaleen Ethiopia ilaa 10 saldhig military waxay ku yaaleen koonfurta Soomaaliya koonfurta Soomaaliya ku yaaleen cross fire bay markaa ku jirtaa Somaliland oo dee Somaliland saldhig military iyada lafteedu markaa waa u baahan tahay waa qodob saldhigga military ee berbere laga bixiyayna kuwa hore laga bixiyay oo wax laga bixiyay Ruushkii oo Mareykankii baa laga bixiyay xisbi ahaanteen marka maxaa lagu diidayaa lada xisbi ahaanteen maxaynu ku diidaynaa waa saldhigga military baa bayna ugu xeeran aad ma mahadsantahay ay gabdhaha masuuliyiinta fursad gabadha hay walaalay bismillaahir rahmaanir rahiim tawaan salaam ya dhamaan martida ka soo qayb gashay dood wadaagan waxaan si gaar ah u salaamayaa gudoomiyaha iyo awilo barnaamijka daadihinaya su'aashaydu waxa weeyaan in xisbiga talada dalka haya markii uu mucaaradka ahaa wuxuu hadii jeer ku celcelin jiray inuu saxaafadda aanu caburinayn uu madax banaysiinayo heshiisyadii dawladdii hore gashay na wuu buriyey markuu yimi marka oo sida haamihii oo kale total baa haysatay markuu yimi wuu laalay kulmiye way laaleen oo 50 sano iyadoo heshiis lala galay ayaa haddana la laalay ma laga yaabaa in sidii oo kale DB World in dekada 30 sano hadda loo saxeexay in sidii oo kale hadii wadani uu talada dalka ku guuleysto la buriyo heshiiskaas oo kale mahadsan aad ma mahadsantahay hay'adda ninka odaga dambeeyo bismillah waxaan salaamayaa Universal TV awlo nagu marti qaaday iyo ka soo qayb galka gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland waxaan rabaa inaan laba su'aalood oo degdeg ah aan weydiiyo gudoomiyaha su'aasheeda koowaad waxa weeyaan doorashada in badan baa dib loo dhigay doorashooyinka Soomaaliland oo ognahay waxaa jira xilli doorasheed iyo xilmudeed madaxweynaha ay kaga dhantahay golihii guurtidu waxay sheegeen in 13 December ay madaxweynaha kaga dhantahay sidii ay markii hore 28 April uga dhamayd taa macnaheedu ma waxa weeyaan in 13 November loo dareerayo doorashadii mise wali waxba mugdi baa ku jira mid waa taa mid kale waxa weeyaan dimuqraadiyadda iyo Soomaaliland waxaan sugaynay fiireen hanaan wanaagsan oo dimuqraadiyadeed xukuumaddii tan ka horeysay saadaal dimuqraadiyadeed bay keentay waxaan ka soo jeedaa gobolada bariga waxaan u hadlayaa gobolada bari baan u hadlayaa markaan saas leeyahay rajo fiican oo aanu ku soo dhiirano wax la wadaaga dadka walaalaha iyo Soomaaliland ayaa noo muuqatay laakiin intii xukuumaddani timid markaanu aragnay geedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland shaki weyn ayaa wuxuu naga galay sida wax u socdaan waxaana warwar weyn nagu keentay hadda oo aynu aqoonsi raadinaynay baa qaabkan loo dhaqmaya hadday noqon lahayd wax wada lahaansho hadday noqon lahayd istixgelin hadday noqon lahayd sharci ku dhaqan berrito marka aynu xukunka qabsano qaab noocaynu dhaqmanaa marka xukuumaddan hadda la bedelay ee xisbigiisu yimaado maxaa uga qorshaysan arrimaha noocaas ee hanaanka dimuqraadiyadda iyo geedi socodka wax wada lahaansha si aanu ugu soo dhiirano oo dadka ay ugu soo dhiiradaan wax wada lahaansha aad ma mahadsantahay ayo gudoomiye arrinta abaaraha qurbajoog aad bay ugu mahadsan yihiin waa run way ka qayb qaataan gacan weyn bay ka geystaan dadka gudaha joogaana si weyn bay uga qayb qaateen abaaraha
shaqaalaha dowladdu wuu ka qayb qaatay ciidamadu way ka qayb qaateen baarlamaanka labada aqalba xubin kastoo ka tirsani $600 baanu ka jarray markaa way ka qayb qaateen dhammaantood saldhigga soomaaliya iyo somaliland faraqa udha udhexeeya waxaa nabadgeliyo 25 sannadood qofka ama muwaadin somaliland ha noqdo ama ajanabi ha noqdo saacaddu doono 24 hourska wuxuu awood u lahaa inuu lugeeyo isagoo xoro socdo saldhigga military wuxuu soo jiidi doonaa dad badan oo danaynaya somaliland oo qaar ka soo horjeedaan saldhiggaas oo u arkaa inuu iyaga khatar ku yahay waxaanu keeni karaa dad badan oo argagixisaa ama dee doonaya arrintaa saldhigga in ay ama weeraraan ama wax ka geystaan saldhigga laftigiisu dee ciidamada isticmaalayo waxaa laga yaaba in wadamo lagaga duulo marka sababtaan u diidanay waxa weeye wixii quraynu iibinaynay nahay soomaaliya waa kaga duwanahay haddii 6 saldhig ka samaysnaa soomaaliya macnaheedu maa saldhig baynu u baahan nahay maaha macnaheedu inagu nabad baynu u baahan nahay caasha runteed kulmiye haddii la baadho youtubeyadii ku hadli jiray dee waktigii mucaaradka ahaa saxaafadda aad buu ugu doodi jiray waxaanu noqday xukuumaddii ugu xadhiga badnayd saxafiyiinta waxaa maalin dhawey statistics la soo saaray waxaa ka mid ahaa 2015 2016 13 saxafi sanadkii baa la xidhay laakiin January iyo February 23 saxafi baa la xidhay labada bilood oo qura marka wuxuu noqday xisbigii uu xadhiga badnaa ee ugu caburinta badnaa waa xidhan joornaallo caan ahaa oo haatif ka mid tahay waxaa la xidhay madax badan oo tviyada mararka qaarkood home cable mararka qaarkood waa la joojiyey maalin dhawada waxaa la xidhay guddoomiyihii Star TV agaasimihii Star TV iyo dee milkiilihii Universal intaba waa la xidhay marka waxay la tahay kulleyba de waa taariikh markii hore mucaaradkaana waa la hayaa kulmiye haddana waa loo hayaa marka kulleyba mar walba waxaan soo jeedinaynaa in madax banaanida saxaafadda ee dee sharcigu damaanad qaaday in madax banaanida loo daayo heshiiska xukuumaddu gashay ama xukuumaddii hore gashay xukuumadda dambe de xaq bay u leedahay in review garayso ay dub eegto haddii loo arko in dani ku jirtana waa la daynaya haddii loo arko in dani ku jirina waa la review garaynaya waxba laga bedelaya ama waa la diidi karaa doorashada mudaxileedka guurtidu goysay waxa weeye mudaxileedka xukuumadda 13 December laakiin doorashadu waxay dhacaysaa sida sharcigu sheegaya bil ka hor marka waxay noqonaysaa 13 November xilliga doorashada madaxtooyada xisbiga waxaa ka go-an in hanaankii dimuqraadiga ee Somaliland dib loogu soo celiyo hortiina inaanu ka cadaynaynaa shacbigana waanu ugu celinaynaa haddii wadani xukunka yimaado muddo kordhin dambe ma jiri doonto ama madaxweyne ha noqdo ama baarlamaan ha noqdo ama golo deegaan ha noqdo arrinta dadka bari beelaha bari degan dadka bariga degan sidaan sheegay maamulka Somaliland waa xaqiiqa la basiri kara maaha waxa laga yaabaa de qaybo ka mid ah weli inaan xukunka ama administrationka Somaliland aanu weli gaarin laakiin aqlabiyadda de gobolka Sool iyo Sanaagba waxay ka tirsan yihiin Somaliland doorashooyinkii si la doonayo kama qayb gelin laakiin nasiib wanaag diiwaangelintii gaar ahaan gobolka Sool si wanaagsan buu qayb qaatay gobolka Sanaag laba degmaan ka qayb qaadan diiwaangelinta waan dhiirigelinaynaa shacbiga reer Somaliland ee gobolada ka soo jeeda si aan sheegayna
wixii dee doorashada lagu sixi karana doorashada ku saxaynaa wixii kalena ama xukuumaddaa saxaysa ama wadahadal baa lagu saxaya saasaan soo jeedina aada mahadsan tahay gudoomiya haye ninkaa odaga waadin siinaya kulli waadin siin doonaa dowlad haye su-aashaada adoo istaagaya candidate-ka u taagan xisbiga wadani ee musharax laba su-aalood baan jecel inaan ku weydiiyo gudoomiye mid waxa weeyaan ilaa xukuumaddii ka horreysay tan ee daahriyaale waxaad ahayd nin ah gudoomiyaha baarlamanka waxa aad iyo aad u caddaan jirtay inaad mar walba waxa xukuumaddii hore daahriyaale keento aad ka soo horjeedi jirtay oo mar ay ka mid ahayd mudaharaadadii ka dhacay tan labaad iminkan waxaa u muuqata inaanad sidaa ugu adkayn madaxweynuhu maalintii dhoweyd khudbadda sidaan ku hayo madaxweynuhu wuxuu keeni karaa motion golaha baarlamanka iyo golaha guurtida ama khudbad sanadeedkiisa marka uu jeedinaya ayuu keeni karaa kolley guddoomiyaad tahay waad ka warhaysay madaxweynuhu waxa uu keenayo kamaad hadlin markii khudbaddii bilaabantay ee weliba lagu jeeday laga saaray guddoomiyihii kale uu jeergareeyey ayaad ka baxday miyayna u muuqan weaknesses adiga kuu muuqda oo ay ahayd markii hore inaad diiddo oo aad ka baxdo oo tidhaahdo u sheegto ilaa waa golahaagii adigoo jeergaraynaysay ama aad mowqifkaaga markaa ka caddayso mayna kugu ahayn weakness markaad intaad dhex timid aad ka baxday taasi waa mid ta labaad waxa weeyaan xusbi baa tahay guddoomiye baarlamanna waa tahay xusbiyadu waxaynu u dooranee dee dadka somaliland u doortay in lagaga baxo qabiilka had iyo jeer ale waxa muuqata in xusbiyada dhammaantood oo aad ka mid tahay ay u ololeeyaan qabaa'il ay ka qayb galaan shirar ay leeyihiin reer hebel iyo reer hebel baa kusoo biiray taasi miyayna idin ahayn oo ahaydna shuruucdii iyo dadka bartaan waxay ahayd waajibaadkooda miyayna ku ahayn weakness marka labada su-aalood aada umahadsan tahay ninkaa kale odaga waa gadaalana soo soconaa waa siin doonaa haye su-aashaada بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waan salaamayaa University TV mar labaadna waxaan salaamayaa gudoomiyaha golaha wakiilada su-aasha ugu horreysa aan weydiinaya waxa weeyaan gudoomiyaha saldhig military marka la bixinayo waxaa loo baahan yahay military expert kii baa loo baahan yahay dowladda Somaliland markii heshiiskaa gelaysay ma dirtay dadkii aqoonta u lahaa military-ga ma dirtay mise dad aan aqoonteedii lahayn ayaa tegay meesha heshiiskaasi ka dhacayay talabaad waxaad dhowr goor ku celcelisay guddoomiye heshiis dowladdu way xeerkaas siinayeen heshiis ay soo gasho dowladdu golaha wakiilada ayaanay keenaysaa ansixinaya haddii maarata heshiiska maalintii dhaweed hargeysa waxaa ka dhacay golihii guurtidaa joogay xaq ma u leeyihiin golaha guurtidu heshiis la soo galay heshiis ay dowladdu soo gashay inay fadhiyaan oo ay ansixiyaan xaq ma u leeyihiin golaha guurtidu intaas aada umahadsan tahay haye ninkaa odaga su-aashaa saddexaad waa ku siin doonaa ninkaa odaga haye waa ku siin doonaa adaa ku xigi doona haye بسم الله وطول السلام يديك قدوميها به عولي عبد الرحمن بن السلام لبدي نبه سؤال شان ويتيني وحق قبيلته وبريها انت مسوملان ادي اد وسطي مكان سطح حركها marka maxaa idinka qorshaysan xisbi wadani ahaan qabyaalada kortegeeda assalaamu calaykum aada umahadsantahay ninkaa odaga dambeey بسم الله الرحمن الرحيم أنا لبس سؤالات بان قدوميها ويدينيا لبس سؤالات ويدينيا وحنا سؤال شكوبات سومالان دولة هذا الشرطة وحاين بدن لقى دواتشين الصحفيين تحدوا أنت بدن وي سؤال شاد مركورن جوابتي مركورن كشرتي وان أغنى هي إن الصحفيين تلقوا تعديو أو يمكن عرضهم باحرا قف بلادك هو غلطان كراه الله بان غلطين ما jirtaa ka doodista ama xisbiyadu inay ka hor tagaan mooyaane baarlamaanka in laga hadlo mooyaane ma jirtaa maxkamadda in la hor keeni karo oo ama shicibkiisa abaabuli karaan ama golayaashiisa abaabuli karaan oo maxkamadda hor geyn karaan dawladda suxufiyiintana mar walba la xirayo oo maxkamadda lagu adeegsado maxkamadda sare si ay u joojiso suxufiyiinta la xirayo taas waa iga qodobka labaad waxa weeyaan madaxweynaha waa la kordhiyey iminkan 2 bilood baa lagu daray tartankii doorashooyinka
laakiin tartankii golaha baarlamanka iyo tartankii golaha deegaanka waxaa lagu daray sanad iyo wax kasii badan iyo golaha guurtida tartanka golaha maadaama la sii kordhiyey oo waqti badan la kordhiyey siday kula tahay guddoomiye xilliga ay kordhiyeen haddiiba ay noqoto xisbigii ku guulaystaa ma la awoodaa in dib loo soo celiyo muddada ay kordhiyeen golaha guurtida aadan waad tahay ayuu guddoomiye su-aalahaas oo dhan waa su-aasha ugu horreyd waxay ahayd haddii aan fahmay waktigii madaxweyne riyaale waad ka yaraad adkayntan soo saas ma runtii waa laga yaabaa dee marka laisbarbar dhigo interpretationka dadka kasoo baxayna sidaa u muuqato laakiin imika laftigeeda dowladda laftigeeda sidaa uguma jejeecsanin muddana hadda wadani waxay xukuumaddu arkaysay de cidda oppositionka ugu weyne kasoo horjeeda xukuumadda marka waxaan is leeyahay dee wakti weli waxba bay leeyihin waa laga yaabaa madaxweyne riyaale sanadadii ugu dambeeya laga yaabaa in arrintaas ay bilaabantahay ee doorashadu soo dhoweyd imikana dee markii laga bilaabo 2005kii markii doorashadu soo dhoweyd ayaa laga yaabaa dee xukuumadda iyo mucaaridnimada xisbigu mar walba kor bay usoo kacaysaa xilliga doorashadu soo dhowdahay inaad dhegeysatay ma aqaanin laakiin horta dastuurku marka labada gole ay soo imanayaan guddoomiyaha golaha guurtida ayaa brotocoolka lahoo isaga jeergaraynaya labada gole maadaama dee hanaanku sidaas yahay mowqifkayga shaksiga iyo ka xisbigaaba habeennimadii ka horreysay baan ka hadlay saxaafadda waan ka sheegay shirka ka hor baan caddeeyey mowqifkayga shaksiga sharciga sidaan u arko cidda ansixinta leh intaba markaa waa laga yaaba haddana hadday dhegeysan baa laga yaaba laakiin markaas dee microfonka iskuma qabsanaynaan iyo guddoomiyu isaga xaq u leh markaa inuu de wada hawsha wado sababtaan uga baxayna waxay ahayd maadaama anigu jeergaraynayo aanan jeergaraynayn waxaan ka mid ahaa un de xildhibaanada markaa meesha jooga ee xaqa u leh inay codeeyaan inay doodaan inay ka baxaan intaba waxay siinaya sharciga marka anigu weakness maan arkaynin inaan ka baxo waxay ahayd protest inaan shacbiga u muujiyo mowqifka iyo dareenkayga iyo ka xisbigaygaba arrinta qabyaaladda in laga baxo way tahay axsaabta waxa loo samaystay in qabyaalada lagaga baxa way tahay weli shacbigu ama deegaana ha sheegtaan ama dareer ha sheegtaan ama qaabil ha sheegtaan weli waxaad moodaa dee 100% lagama wada bixin baashiyo axsaabtuna dadkay u baahan yihiin oo deegaanaday u baahan yihiin oo haddii qolobku tidhaado reer hebel baanu xisbigaan soo gelaynaa xisbigii baa u baahan marka mararka qaarkood waad ku khasban tahay ama necbo ama jeclo oo dee hadduu kuu sheegto ama deegaan ama cid gaaraba laakiin xisbigu wuxuu dhiirigelinayaa mar kasta in laga baxo reernimada oo xisbinimada la aamino ayaanu ku adagnahay ku dhiirigelinaynaa shacbiga reer somaliland su-aashu waxay ahayd ku xigtay xukuumadda somaliland markay gelaysay heshiiska dad aqoon dee military ma u dirtay saldhigga military ciddii lasoo negotiate gareyneysay waxaan is leeyahay maya wasiirka yidhi waa soo seexay wasiirka aviation ku haayo inuu askari noqday weligu malayn maayo cadami u malayn maayo inuu ogaa jananka militarigu inuu ogaa u malayn maayo marka waxaan is leeyahay cid khubaroo military oo dee la og yahay oo hawshaa ka qayb qaadatay
anigu ogahay ama dee xukuumaddu soo dhigtay shaashadda ma jirin golahu markuu wada fadhiga wada jirkaa leeyahay waxyaabaha uu ansixin karo ama sababtay u fadhiisan karaan waxaad ka heli kartaan iyadoo faahfaahsan qodobka 8 faqradiisa 6 internetkana waa ka eegi kartaan telefoonadiina waa ka eegi kartaan marka sababahu golahu u fadhiisan kara iyo waxyaabo wada ansixin karo waxay ku cad yihiin qodobka 8 ee dastuurka faqradiisa 6 kumana jirto heshiiska xukuumaddu gashay inay wada ansixiyaan labada gole waan ka sheegay habeenkaas waxaan ku yiri odaygu maan ka xishoonay dee inuu isugu yeero labada gole madaxweynaha baan tixgelinay laakiin sharcigu haddii heshiis tahay anigu madaxweynaha waan u sheegay bisha 7 baan la kulmay waxaan ku yiri haddii heshiis tahay waxa xaq u leh golaha wakiilada oo kaliya arinta su-aashii ku xigtay qabyaaladun bay haydo waxay la tahay qabyaaladu ummaddu way soo bislaanaysaa way iskaga bixi doontaa wax waliba waxay qaadataan waqti bay qaataan waxaan aaminsanahay haddaynu aaminadii axsaabta iyo xisbinimada waxaan isleeyahay dee waa 3 xisbi markii la sameynayay ujeedadii loo sameeyey waxay ahayd inaan reer waliba ama jilib kastaaba aanu samaysan xisbi sidii dhacday 1969 laga sheekeeyo 100 xisbi la furtay doorashadii ugu dambeysay dowladda siviilka Soomaaliya marka jilib kasta wuxuu furtay xisbi marka 9 xisbi ka badan baa jiray waqtigaas xukuumaddu dadka runtii caburin badan bay ku haysaa xukuumaddu dadka ama mucaaradka ama cid aanay rabin waxay samaysay TV qaranka baa jiray uu leeyahay cashuurta dowladda laga masruufo iyo radio wasiirada dowladdu cid doonaya halkaas ka caayaan iyaga lama xidho laakiin qofkii kala hadla munir ba ka mid ahaa hadda waxaan loo diiday inaan soo booqano inaan soo dayno iska daa waxaan loo diiday aniga guddoomiye baarlamaanka waxaa la diiday inaan soo booqdo ugu tago police station ku jiray marka xukuumaddu dowladda dadka waxay ku kalifaysaa markaa in sidii kulmiye samayn jiray inuu raadiyo ka soo hadlo meelahaas annaguna aanu doonano marka dambe marka kolley waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay caburinta ka dayso saxaafadda iyo joornaalada iyo suxufiyiinta oo kuwa xidhan lasoo daayo joornaalada la mamnuucay loo fasaxo hanjabaadana laga daayo tviyada iyo dadka kale ka shaqeeya mihnadaas intaba baarlamaankii guurtida runtii muddada la kordhiyey dadkuna kuma farxin shacbiguna kuma farxin beesha caalamka kuma farxin saaxiibada Somaliland kuma farxin marka arrintaasi way furan tahay baan u qabaa dawladda timaada inay arrinta dib u eegto way furan aada ma tahay hay dadka aan Ruusiya ma siin doono dadka kale fursad siin doona ninka gadaal baanu siinayna markaan hay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوميها iyo madaxda kale ee sharaftan iyo bulshada kale ba aad iyo aad baan u salaamaya saldhiga waa lagu yardaalayo anigu saldhiga waxba ka sii oran maayo Cabdiraxmaan Bamba ka dheesho waxa la yiraahdaa awrka iyo hoggaan awrka iyo ninka maxaa u dhaxeeya hoggaanka u dhaxeeya marka meeshii Cabdiraxmaan dibadda iska taagay hashi lagu qalanayay anigu tiim baan dibadda taaganahay isaga waxba ku dheeraan maayo xisbiga wadani xubin kamid ah baan ahay xisbiga wadanina anigu waxaan u arkaa dawlad dhisan oo ku socota maamul qaran su'aashan weydiinaya waxay tahay gudoomiyaha United Kingdom baanu nahay xubno degan oo xisbiga wadani ah United Kingdom guddi heer qaran oo xisbiga wadani bay leedahay
guddidaasi ma haysataa mandated ay iyagu wixii qaldan ee xisbiga gudihiisa kaga qaldan United Kingdom ay iyagu wax ka qaban karaan mise waxay haystaan in baad taysaraha loo soo doonto Hargeysa xarunta sare aad iyo aad noo salaamantii aad ma soo su'aasha ayay ninka odaga hay su'aasha bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa aad baan ugu mahadcelinayaa TV-ga Universal marka labaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha oo runtii waxaan hore dee looga baran madaxdii hore waddankay ma jirtay noo horseeday runtii su-aasheedu waxa weeyaan dee imanka waxaa ugu badan hadda muranka taagan waa dekada militariga baska kulley waxaynu ognahay TV-gu de waa recording been ma sheego waxaynu haynaa xukuumadda imanka waddanka haysataa in 3 milyan iyo 200 ayaanu ku kareynay baska sanadkii haddana mar labaad waxaanu TV-ga haddana ka aragnay amba wararka inay yidhaahdeen waxaanu ku bixinay free dee caqliga bini aadanka runtii dad badan waxaa muran geliyey sideebee dee milyan marka hore waxaa timi 1,200,000 sideebee base dhanku ugu bixiyaan bishii waa 100,000 dee bakhaaraha bixiya karoo bixiyeentaa Eritrea dowladda Eritrea nagu dhow beeskeedu sanadkii waa 300 milyan ee ku kareysmaa oo ku kareeyeen iyo dee weliba shidaal la siinayo iyo waxyaalo fara badan oo loo raaciyey marka taa maxaad ka qabtaa gudoomiye iyo warkaas aad u mahadsan tahay ninka kale odaga hay su'aal haye bismillaahir rahmaanir rahiim su-aashaydu waxa weeyaan kolley waa arrintaa saldhigga unbay idin ku wareegaysaa saldhigga su-aalihiisu waa badan yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland waxa uu sheegay in aan wax heshiisa oo lala galay dowladda Imaaraadka aanay jirin ilaa hadda wuxuu halkan markuu yimi sheegay in imika loo saari doono oo madaxweynuhu u saari doono guddi arrintaa negotiation ka gasha waxaana baarlamaankuna waxbay baasgareeyeen labada gole waxbay baasgareeyeen طبعا وين ognahay waxay baasgareeyeen nabad sharci oo rasmi ah oo la keenay aanu jirin su-aashan ku weydiinaya waxa weeye gudoomiye su-aalan markaa weydiiyey anigu markaa kan joogay Dr. Saad oo ah haddii aan waxba heshiisaba la gelin oo ilaa hadda wax heshiisa la gelin baarlamaankuna uu baasgareeyey oo uu ogolaaday wax haddii heshiis la soo galo cusub oo imika negotiation ba hadda la gelayaa buu yidhi haddii heshiis la soo galo heshiiskaa ma lagu soo celinayaa baarlamaanka oo ma la ansixinayaa waayo waxa loogu talagalay in la ansixiyo heshiiska baarlamaanku dowladdu ay la gasho cid dibadda la soo gasho marka maadaama aan wax heshiis oo la ansixin jirin oo heshiis imika hadday la soo gasho ma la keenayaa baarlamaanka ma lagu soo celinayaa su-aasheedu waa taa aad u mahadsan tahay iyo gudoomiye bismillaahir rahmaanir rahiim su-aashii hore waxay ahayd guddiga sare UK mandate ma haysataa ee ay ku fuliso waajibaadkeeda UK markaas jawaabtu waa haa gudoomiyihii baa fadhiya hadda mandate waxaanu siinay gudoomiyaha markii aanu magacawnay markaa guddigu waxay haysataa mandate buuxa oo ay ku fulin karto howlaheeda laba saldhigga military waa la sheegay 1.2 milyan wade waa war buu ahaa markii dambena xukuumaddu dee nimankii u matelayay hawshaas waxay saxaafadda ka sheegeen inay bilaash ku bixiyeen marka labadaa warba waa jireen laakiin waxaasoo dhan waxa isku fuuqsaday wax documenti oo la keenay dee baarlamaanka totally ma jirin haddana ma jiro labay mid noqonaysaa dee xukuumaddu in mar hore heshiis gashay oo qarinaysay oo soo bixi doona laakiin heshiis la keenay oo dee loo ansixiyey xukuumaddana heshiis loo ansixiyey ma jirin imaaraadku hadduu sugayeyna wax loo ansixiyey ma jirin
haddii dee heshiis la keeno ha baarlamaanku dee waa inuu eego oo ansixiyo ama diido labada xaq buu leeyahy maaha inuu ogolaado un laakiin inuu diido iyo inuu ansixiyo iyo in wax laga bedelo intaba xaq buu dee wuxuu ku matelayaa shacbiga marka haddii heshiis la keeno oo dee heshiiskaasi mid lagu qanca uu yahay baarlamaanku waana aqbali karaa waana yeeli karaa laakiin intaan ogahay dee idinkuna ka warhaysaan heshiis la keenay baarlamaanka sidaa wasiirku sheegayna runtii bay ahayd baarlamaanka lama keenin hadduu jirayna dee waatana leeyihi mar soomaaliya wax seexday dee xukuumadda laga rabaa inay dee shakiga ummadda ka saarto shacbigeeda waa inay ka saartaa mugdiga aada iyo mahadsan tahay ninka adaga haye su-aashaada haye su-aal adiga haye adiga haye haye su-aashaada haye su-aashaada haye sidaan la soconno dad badan oo somalilan waxaan la soconnaa wararkii hadda ugu dambeeyey ee soo baxayay waxay sheegayeen in xisbiga wadani loo diiday inay banaan baxaan oo dowladda somalilan ay tiri lama banaan bixi karo layskuma imaan karo hoteelada laguma shiri karo waa maxay positionkaaga horta mudaharaadka dastuurka ogol laba arrimoodna xukuumaddu iskuma heli karto kow inay dastuurka jabiso ay tidhaahdo mudaharaad silbiya lama qaban karo laba hudheelada laguma shiri karo oo dood laguma qaban karo markaa dee waxa lagu bedelaya way dadku islaayo marka labadaasi waxaanu qabnaa xaqna shacbigu u leeyahy in mudaharaado in dood la qabto hudheelada la kareeyo hudheelada waxaa loo kareysay dee waa business hudheeladana waa lagu shiri karaa oo cid is hortaagi kartaa sharciyan ma jirto waxaan qabaa untaas inay tahay kutumasho sharci xisbiguna xaq buu leeyahay shacbiguna xaq buu leeyahay su-aasha ugu dambeysa guddoomiye adigoo mahadsan waxaa timid wadamadan yurub lug ayaad ku mari doontaa goboladan wadamadan yurub ku yaala waxaadna la kulmi doontaa dad badan oo somalilan dabcan dad badanna way ku dhageysanayaan oo arrintan saldhigga militariga iyo abaaraha ka jira wadanka kelmadaada ugu dambeysa maxaa dadka somalilan leedahay shacbiga reer somalilan horta dee waan salaamayaa ilaahay marka hore waxaan ka baraya horta abaaraha inuu naga soo jebiyo oo madar khayr qabayna siiyo taasuma lagaga bixi karaa oo mucaawimad kastoo la bixiyo ta ilaahay baa ka weyn ta labaad shacbiga reer somalilan waxaan ugu baaqayaa dee inay ilaashadaan nabadgelyadooda iyo midnimadooda xorriyaddooda inay daafacaan waxay xaq u leeyihiinna inay ku dhiiradaan baan ugu baaqayaa shacbiga reer somalilan aada iyo aad aad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha aqalka wakiilada ee somalilan oo barnaamijka dowladaad aanu caawa ku marti qaadnay sidaasoo kale dad aada u fara badan oo aqoon-yahanaha oo iyaguna somalilan oo qaybaha kala duwan ee magaalada london ka yimid iyo u k ba iyaguna waa mahad celinaya dhammaan dadkiina daawanayey ee dunida naga daawanayeen sidaasoo kale tan iyo intaanu dib u kulmi doona barnaamijkan barnaamij lamid oo cawil daahir nabaadiino